dee annaga hana weydiin waxaanu ka faa'iidnay ilaan banaanbaxa faa'iidadiisa laguma dirin inaadna weydiiside ka jawaabaye horta waa xaq dastuuriya dhambaalo haddaan faa'iido muuqataanay jira khasaaru badan yahay maxaa keenaya marka la ku dhigo in badan baanu ka meermeerayn 6 bilood baanu ka meermeerayn waa nalagu kalifayday wahagaag aad buu mahadsantahay mudanayaal muddada waxaad ku baaqayseen barnaamijyo ugu dambeyn barnaamijyadood qabateen ilaa haddana waxaad ku baaqaysaa inaad sii qaban doontaan maxaad ka faa'iideen haddaad tin xusbiyada mucaaradka barnaamijyadii dalka ka dhacay oo dhaawac iyo dhimashayn barnaamijyadaasi waa xuquuq distoria faa'iido iyo khasaaraba wixii ka yimaada xukuumadda ka mas'uula dee annaga hana weydiin waxaanu ka faa'iidnay ilaan banaanbaxa faa'iidadiisa laguma dirin inaadna weydiiside khasaaraa meesha ka dhacaye khasaarahana weydii iyo khasaaraha cidda geysatay haddaan faa'iido muuqataanay jira khasaaru badan yahay maxaa keenaya marka la ku dhigo waa dareen bulsho mudaaharaadku haddaanaan hor kicin iskii buu isaga dhici lahaa meel walba mudaaharaadka inaannu annagu qorshayno oo aanu ku jiro oo aanu habayno wax fara badan bay dejinaysaa oo ay hagaajinaysaa oo ay khasaaraa dhimaysaa laakiin mudaaharaadka khasaaraa ka yimi ka hadaloo faa'iido iminka ilaa sharcigii lagu soo noqdo waqti laga hadlo lama joogee khasaaraha waxa ka yimi xukuumaddii laysay dadkaas iyaa ka mas'uula anaa ka jawaabaye horta waa xaq dastuuriya dhambaalo waxa weeye marka nidaam waxa kale oo dhan la laalaabo waa xaq muwaadiniinta loo siiyey iyo xisbiyada mucaaradka inay mudaaharaadkaas salmigaas sameeyaan inaanu exercise garayno xaq baanu leenahay waana wado in badan baanu ka meermeerayn 6 bilood baanu ka meermeerayn waa nalagu kalifayday waa nalagu kalifay xukuumadda nagu kaliftay waana xaq dastuuri oo muwaadin kasta leeyahay inuu sida dastuurku qodobka 12 farqadiisa labaad sheegayso waa xukuumadda lafteeduna sheegayaan waa xaq ummaddu leedahay in mudaaharaad salmiya la sameeyo